anaga iyo maamulka Somaliland muranduleen nagama dhaxeeyo laakiin waxay ku soo xadgudubtay dhulka Puntland waad ogtihiin 19 dalku markuu dhacay dalku waxa ka jira 18 gobol oo la yaqaan cayiman wixii inta ka dambeeyay dadku waxay isugu guureen nidaamka federaalka intii rabtay baa wada heshiis Somaliland waxa lagu aasaasay markii ugu dambeysay marka burca laga tago boorama qabaa'ilkii ku bohoobay waa la yaqaan garow markii la aasaasana qabaa'il ku bohoobay waa la yaqaan qabaa'ilku ku bohoobay Puntland sideeda waa gobolada bari nugaal waqooyiga gaalkacyo sool sanaag bari iyo buuhodle wax muran oo ku jira male taariikhduna way sheegaysaa dadkeedana waa joogan cid ka maqnayd oo qabaa'ilka dadkaas iyo siyaasiyiintiisa dhisidii ma jirin iyo ururadii markaa matalayay ee SSDF USB SNDU marka cid xad gudubtay dadku waa u jeedaa waxaan rajaynayaa inay iyagu waansamaan annagu dagaal ma aha ula jeedadeenu laakiin dhul muran aan uga jirno ma jiro annaga muran ma jiro dhulkan dhul ay ku soo xadgudbeen way marka waxaan rajaynaynaa inay si nabad uga tagaan oo ay ku noqdaan fariisimahoodii iyaguna waxay aaminsan yihiin inaad idinku ku soo xadgudubteen xuduud ay la leeyihiin Soomaaliya hadday iyagu Ingiriis noqdeen anagu Talyaani ma nihin dhul 60kii ka hor Talyaani Ingiriis baa gumaysan jiray halka ma yaalo dal Soomaaliyeed oo calan qaatay 1 Juulaay ummadda Soomaaliyeed oo xor ah oo jamhuuriyadda Soomaaliya lagu dhisay taas adduunka aqoonsan yahay UN ku aqoonsan yahay dalka Soomaaliyeed waa dal Soomaali la yiraahdo marka cid khaldan iyana waa istaqaana anaguna waa ognahay haddii labadiina fakaraay saa u kala fog yihiin midna uusan ka talaasulayn qadiyadiisa ma jirtaa cid kale oo idin dhexdhexaadin kartaa haddii horta wixii iskhilaafsan baa wax loo kala qaadaa laakiin wixii khaldan waa la qabtaa anigu waxaan qabaa mashruuca Somaliland waa mashruuc khaldan oo wadadii saxda ahayd marka kulli cid qabato way heli doontaa ama waqtiga qaban doona laakiin anigu hadda ma arko khilaaf annaga noo